kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu markan ku eegi doono siyaabaha ugu fudud ee online-ka ama internet-ka dhaqaale looga sameeyo barnaamijkan gaarka ah dabcan waxaa noogu martiya Cabdicasiis Ciise Ibraahim oo shareeco loo yaqaano oo isagu kamid ah dadka aynu oran karno ku guuleysteen inay internet-ka ama online-ka ay dhaqaale ka sameeyaan. Cabdicasiis Sab TV ku soo dhaw. ugu horeyn Cabdicasiis waxaad kamid tahay dadka dhaqaalaha ka sameeyay ee la oran karo horumar bay ka sameeyeen online-kan casriga ah oo aanay Soomaaliduba boqolkiiba 99 fahansaneenba. bal ugu horeyn siyaabaha online dhaqaale looga sameeyo ee ganacsi looga sameeyo bal sharaxaad naga sii. bismillaahir rahmaanir rahiim. aad baad mahadsantahay aad bana u dhawahay horta waxaan maanahay hadda waxaan oran karaa online dad fara badan oo siyaabo kala badan u badan ama kala duwan lacag u sameeyo way jiraan xasad hadda waan ugu soo batay ganacsiyada geesaha joogna dhexdooda magaalooyinka kale dadka in online lagu wax loogu iibiyo mobile loogu iibiyo tikidhada loogu jaro nidaamyo noocaas way jiraan in online lagu shaqaysto internet kala isticmaalo hadda waan ugu soo yara batay xasad hadda kan aan ku jirnaa waa sarif marka hadda qaabka suuqa wax lagu sarifo wasari anagu waxaan online qaabkii hadda ugu shaqeynaa mobile ma iibina alaabna ma iibina sariflihii caadiga ahay ayaa ku noqonaya صح laakiin sariflihii minhin laan iyo shilin iyo dollar sariflihii sarif caalami oo dollarkii eurodii yintii oo lacagta Jabaanka ah boonkii lacagihii oo dhan Canadian dollarkii Australian dollarkii lacagihii oo dhan sarifaya wixii markaa u baahan oo kala sarifaya baadana صح marka hadda waxaan oran lahaa mara nidaamka online-ka aad baa loo soo kan hadda aan ku jirno laftiisa ma yara Soomaalida ku jirta ama Soomaalida ka shaqeysa hadda tira yar ma صح marka sida qoriga lagu sameyn karo waxa weeyaan just kaliya in la helo internet صح qofka hadduu internet helo waxaan uu sameynayana wuxuu yahay uu garanayo xirfadeeda barto aad bay u fudud صح oo cilmigiina waa la bixiyaa xirfadii lagu sarifla noqo ama online noocyada kala duwan shaqeyso qaasatan hadda anaga xirfadda sariflaha waxa ka xigeen xirfadda ama shayga aad baranayso waxa weeyaan si graph loo akhri صح oo wax walba dunida sicir walba oo nidaam walba qiimo walba dunida graph ku kala socda صح dadku way wada yaqaanaan hadda graph-ka ama graph tusaale graph hadii la siiyo صح qof walba uu fahmaya graph-ka hadii sida graph-ka sarifka loo akhriyo baratid aad ogaatid qiimaha exactly sarifku hadda marayo isbedelkiisa ugu dhow goorta noqon doono oo fududayna gacan hore gacan daba fahantisay kuno sidii kugu kala bedelmaya صح waa sidii caadiga hadeer sariflayaashu hadduu samaanta oo ninka sariflaha maanta soo kaco hadduu samaanta ogeyn wuxuu gacanta hore ku sarifayo oo tiisha ku dhagan yahay oo gacanta qiimo isbedelo ama ku caama dhaco ama saga dadka dhici ama saga dhac way qiimo shalay hadii uu laga hoos maro oo shalay hadii laanta oo kala halkan laam arkiisa laam laga isticmaalaa hadii 8500 oo ha shalay صح sarifku waxa صح maanta haduu 7500 noqdo hoos aado oo soo 8 iyo barkiisa ku sarifo dadka uu dhici isaga faa'iido joog صح 500 dheeraada صح hadii laakiin 9500 uu noqdo isagu soo weyn laakiin 8 iyo barkiisa uu ku wada sarifkana baashu isbedelaysayo saga dhacmay hadda tu xisaab ogaanaya fara badan oo dhaxaysa marka kan nidaam graph lagu ogaadaa exactly qiimaha isbedelka sarifka صح halka markan maalintii hal mar isbedelo hal mar afraad ka isbedelo sarifkeenu halka waxa laga yaabaa daqiiqadii 10 jeer صح isbedelo صح marka kaliya in internet heshid aqoontan heshid badan ka nacsan kartaa ima ku filan kartaa ma ku filan صح xirfadda sida loo shaqeynay internet just laga qabo in yar hadaynu halka Cabdicasiis ku noqono nidaamkan ku shaqeysan waxa la yiraahdaa forex waana hab casri ah oo dunida imaka la oran karo way sii guuraysa hadaynu tubiga noqono goortu bilaabmay iyo Soomaalidu goortay fahmeen iyo qaabka u kobcayaan Soomaalidu horta Soomaalidu hadda waxay noqotay dad meel walba jooga oo dunida meel fara badan ama dalka aad bay u baaxsanaa صح hadii la yiraahdo Soomaaliya goorma baratay horta aad ma jismin karno way hadda anaga dad waan naqaanaa 7 sano ku jira 10 sano ku jira 5 sano ku jira halka anagu sanad meelaha aan ku jirno marka shaygan shay casri lama oran karo hadda inaga dhexdeena wada inagu cusub sanadkii u dambeeyay wuu inagu soo batay laakiin 70 sano 100 sano ayuu jira sarifku asal wuxuu ka yimaada sarif marka lagu leeyahay waa laba shay laba lacagood oo kala duwan isku bedelay dagaaladii reer galbeedku ku kala xurmeen
labada dagaal kala bixiyaan wixii ka dambeeyay lacaguhu ka lacag banooday moonti ka hor waxa dhici jirtay dunida ama xiliyadii hore taariikhda ama saxaabiyadii ama taabiiciinta ama wixii ka horreeyay Nabi Ali sallallahu alayhi wasallam wixii dib lagu noqdo ama dirham diinaar ama ba dunidoo dhan ka gadmiyay lacagahay jiray hal lacag ba meeshii doona la adeegay afarta qaarada dunida halka lacag ba lagu adeeganay sarifku wuxuu yimid markii lacag kala xurmeen dalkan lacagta gaarka ayaa shay kana gaarka shay waxay noqotay marka labada dal marka wax kala iibsanayaan in lacagta lagu bedelo intii xilligii uu jiray xilligii u bilaabmay in lacag lagu bedelaaba sarif waa jir صح khaasatan markii dambe online laga soo dhigay xilliyadii dambe ee dawladdu soo dhawaaday bay ahayd hadda waxaan kana ilaa 30 sano ilaa 50 sano inta u dhaxaysa oo la oran kara waxa bay dadku aad ugu badnaayeen inay shacabku ganacsigan galaan awl sarifleyda waaweyn baa geli jiray sida bangiyada dawladaha ganacsatada waaweyn baa geli jiray Cabdicasiis Shareeca ganacsiyadan caadiga ah iyo kan marka aynu wadaan forex la yiraahdo maxay kala duwan baan oran karnaa dadka hadii bayaan kulay wax farqiga u dhaxeeya horta ganacsi waa ganacsi ganacsiyadu kamid yihiin laakiin wuxuu kaga soo dhaxbaxaya laba shay waan ka khatar badan yahay waan ka faa'iido badan yahay صح labadaba aad uga faa'iido badan uga faa'iido sida ay noqon hada ganacsiyadina caadiga ah malaadi sanadkii 120 boqolkiiba 10 boqolkiiba 30 baa meelaha saala faa'iido waa sanadkii markuu lacagta $1000 ku jira uu soo wareego 12 bilood baa faa'iidaysaa boqolkiiba 30 meelaha boqolkiiba 30 halkan bishii boqolkiiba 30 faa'iido kartid bal isbuucii aad boqolkiiba 30 faa'iido kartid adiga xirfadaada adiga chance ku soo maray adiga saa suuqa iyo sarifada wax la kala sarifanayo aad ugu soo jeedid ku xidhan markaan bishii ama isbuucii boqolkiiba 10 ama boqolkiiba 20 aan faa'iido karay sanadkan faa'iido taa ka maxaa ku cad inuu ka faa'iido baday had buga faa'iido baday ayada ku xidhan tahay khibradaad mar balaad la ku xidhan sida dhinaceeda kalena uu ka khasaaro badan karo hadii xirfadaada is dhisnay ama aqoontaada ku suuqan aad u haysaa ay samarneen صح xoolahaaga boqolkiiba 720 boqolkiiba 30 sidaayay hal maalin xoolahaaga dhan khasaar karta waa inta u baahan in la cadeeyo taa qofku haduusan aqoontiisa haysan waxaan aqoon kama shaqeyn kartid wuxuu khatar ku jira hal mar in khasaar halka ganacsiyada kale ka soo qof kawaas loo gaarsamay qaano wuxuu bilaabay inuu ka gacso macquul ma in hal maalin kabiisiyo dhan waayo khasaar long time business nin baa sanad ku kacaya nin 6 bilood nin ka sii badan halka laakiin hadii aan cilmiga la iman waa shay ganacsi xirfad soo taway moonti hadaa xirfada sarifka aan garanay hal mar ba khasaar sarif loo dhan dabacada u leeyahay sarif loo dhan hada sarifka la socon soo hada kan electronic ay Soomaaliland isticmaalo leeyanka iyo dollarka la isku bedelo hadii hal tifar aad khalad ka reebtid ka soo qaad 1 milyan ama 800 iyo konton abaf baa lagu sarifay $100 automatic wadu gelinaysa roorti hadii hal tifar aad ka reebtid meeshii 800 aan 8500 credit ama 800 adu lacagtii hada tifar credit hoos u dhacday macquula hal qof inuu laba dhacdo qasooyin badan ka dhacda 5,000 hal mar laga shubtay lacag yar ay ga shubtay sim sarif loo dhaciladaas uu leeyahay hadii aan xirfadda taagnayn waa kan waxa keenaya marka qofku marka online wuxuu yahay waxa moodaya wixii inuu mar walba guuleysan karo nidaam halka sarifyaasha kale ay maadaama wixii lacag gacanta ku hayaan ay ka taxadir badan yihiin taxadirka yar yar qof soo qon lahayna dadku faa'iidada faraha badan bay soo maqlaan waxay moodayaan hal mar la faa'iidayo marka waxa oran kana waan ka faa'iido badan yahay aan ka khasaaranay suuqan saameyn inta leeg ku leeyihiin wadamada waaweyn dhaqaalaha haysta kaalintii bay kaga jiraan qaabkeeba uga ganacsadaan saameynta ku leeyihiin wadamada dhaqaalaha haysta saameynta ugu weyn bay kala oran kana waxay tiriyaan marka suuqa dadka lagu baranayo ama la baranayo dadka waxyaalaha saameynta suuqa leh sax kow dawladaha kamid sax haddana waxa loo sarifaa waa marka horta wax sarifasid ama la kala sarifanayo maxaa ku ka customer inash asalahan inaad sariflahaaga sanduuqaaga sarifka digatid meel sariflayaal fara badan joogaan inaad digatid meel ay joogaan meel sariflayaal badan yani oranay meel customer badan ay joogaan inaad digatid inaad digatid meel bilaa customer mid maamuun sax meesha customer ka faraha badan waxay ku keenaysaa sarif fara badan baad keenaysaa maanta صح meel bilaa customer ana waxaad keenaysaa qof baa Soomaaliya soo lahaan hada xaafadaha sariflaa kuma aragna Soomaaliya in hadu xaafadaha sanduuq soo dhigto oo sarif la noqonay walga sarifanaya oo heli sarifta laakiin de marna la noqon ma in ka tala soonta santarka fadhiya santarka dadkii isku iimaanaya fadhiya صح
dowladahan waaweyn ka iibsi iyo macnaha lacagta ka baxaysa iyo lacagta soo galaysa ba ka fara badan dowladaha صح saadarteedu ka customer badan saadad saameyntu ugu faraha badan dhaqaaqa ugu faraha badan kala iibsiga ugu faraha badan maadaama ay sameeyaan khaasatan ilaa 8 dal bay yiraahdaan 4 dal ugu soo weynta qolada Yurada iyo Mareykanka iyo Japan iyo kuwaas ay ugu soo weyn Yurama iyo si kala qaad xitaa qolada Bank kuwa Canada iyo kusoo xigaan iyo Australia iyo kusoo xigaan iyo New Zealand صح kuwaas ugu sii waa iyaga ugu ii badan bay yiraahdaan gelista iyo bixista lacag soo baxaysa lacag galasa maamulsteedana ugu fiican inay maamulaan صح oo dal faajira dad jannada kala wax badan baa kala wax badan ka sabax laakiin qaabka dhaqaalaha ay u maamulaan baa ka duwan qoladan si u maamusho marka saameynta ugu badan bay ku yeeshaan waxa keena in maanta aad faa'iido badan samaysid waa dhaqaaq fara badan ayagu sameeyaa ay sameynayaan taas dhaqaaq fara badan sameeyaa صح wadamada guud ahaan markaan ka nimaadno kambaniyada iyo dadka gaarka ah ee ka ganacsada bankiyada iyo maxaan ka xusi karnaa ayaga qoftan shakhsi meesha saameyn kuma yeelan karo صح waxaan sarifaysaa waa lacag adduun oo dhan dhaxtaal صح saddex ganacsade iyo shakhsiyo ma bangigu waa iska dawlad lacagta dalkaas oo dhan magacan ku haya صح dawladdu buu ahaa sax ganacsato waxaa jirta iyadoo tuun waaweyn oo dee usoo sariflay meel walba ganacsato waaweyn beelada muufti ganacsato waaweyn oo suuqan u ganacsi yimaado wax kale ka ganacsano sariflayaal waaweyn oo tuun weyn oo lacag weyn ku ganacsado iyagu dee sida sariflayna kuweena waa kala awood weyn kala awood dee ganacsadaha weyn lacagta weyn sarifayo lacagta markaa din kara soo faa'iideyso ممكن بدنت هاي سو هذا ممكن سو ما أنت صار ممكن بقول قف حصر فيه بقول قف واحد كسر أنا توقف حصر اسمه متي أود بها هي العقد بدن وكسر كباسيتي من حاجة وجو أود بدنانا يعني صرف كنا عادي إكساكتلي لكن شخصيات ما لو عرفنا كرقف شخصية أود بالمسوق يعني واي وأدوينا هذا قف كده حموان لكن بنجية إيه وحجرة بنجية الدولة ده يعني ما كان عستده وين يسوتها وحيلها السامين فربنا صح سوق كله hagaag cabdicasiis haddaynu taa ka nimaadno dadka Soomaalidu waxay kamid tahay Soomaalidu waxay kamid dadka dhaqaalahan hooseeya marka wadamada Afrikaba sidee bay dhaqaalaha Soomaalidan ee hooseeya haday shakhsiyaad noqoto haday dawladda noqoto sidee loo kobcin karaa maadaama dadka in arrimahan ku dhex jiray horumarka ka sameeyay kamid tahay wallahi saaxiibo Soomaalidu dhinacna wala oran karaa wada dambeeya dhinacna wala oran karaa aad u fiijigan oo kulli naftooda shakhsi marka loo eego صح aad bay ugu rumeeyeen ganacsiga fiican noqdo inuu meelo badan dunida ka tagaan inay wax badan horumariyaan waa sax asa mujtamac ahaan asa dawlad ahaan way dambeynaayo oo maamulada qaabkan u dhisanahay uma dhisna in badan ka dambeynaa laakiin marka la leeyahay qaabka Soomaaliya xoogin karto hadda waxa ku jira anagu waa sanad marka YouTube-ka meelaha eegtid qofka dadka waxa arkaysa kuwa ku leeyahay macallimiinta anaga wax noo dhigay ayman wax nagu dhigi jiray qaar 7 sano 3 sano baa waxaan ku fahanay lacag ka sameeynay halka maanta marka soo istaahay suuqa Soomaaliya lacag sameeyay boqolaal qof waa sanadkii u dambeeyay wali hadda inta uu Soomaaliya soo galay anaga Soomaaliya waxa nidaamka noo keenay oo aan ku jiro dadka waxaan nidaam ku fahmay company IML banaga noo keenay صح dhalinyaradi IML ku biirtay ama macad waa institute ama macad lagu barto sida suuqa loo shaqeysto laga barto aqoonta laga barto kaas anaga noo keenay صح kaas markuu dalka yimid oo dhalinyaro fara badan filimkii keeneen oo wax ka fahmeen waa in marketing u sameeyeen company-ga kale wax bartay yiraahdeen horta ugu badneed dad ku jabay awal tirada dad ku jirtay aad buu yaray markaas aad mashriqiga maghrib Soomaaliya joog afar dhinac صح aad loogu jabay marka eegtay dadka intii wixii ku jabay wax ka keenay ay maanta ama marka la sheekaysatid faa'iido ku qaba aad buu badiyay صح marka xalan kartaa Soomaalidu fikirkooda marka hore qaab ku horumariyaan aad buu fiican waad bartaan simple laakiin kullama dadka loo sii sheego nidaamku inuu jiro wax lagu soo hormarin karo way waa dhaqaale mada inoo madax banaa صح xora walo caqabad inaga haysato lacag fara badan dalka soo gudbi karin lacag badan ka bixi karin dhibkaas oo meesha ka jiro hadana waa nidaam xor ah صح oo adigu xor u tahay milyan ka sameeyay milyaneer ku noqotid bal asaagada dhayliga bilaha ad ganacsatada banaan taagano laptopkiisa qoriyo hawshiisa wata adigoo ka faa'iideysanay internetka casriga ee dunida ka jira ay noqonaysa haddii taa kale maadno dib haddii u yar melecsano qaabkan looga ganacsado suuqan forex ka haday noqoto haday kan kale ay soo xusnay noqoto qaab ma jiraan qaabab kale oo suuqan looga ganacsado oo lacag looga sameyn karo online forex ahayn waa jira walow aan technician ama IT-shan aan ahayn oo reer caafimaad ah markii hore laakiin waa jira way Soomaalida badan baa arkay hadda mobile ku iibinaya nidaamka ku iibinaya online labo nidaamyo fara badan oo online lagu iibinayo baabay wayna soo wada gaadheen oo nidaam fara badan noocaas marka online hadii noqoto
aad buu badan yihiin qaab loo ganacsado ka forex laftiisu hal dariiqoonba mise isaga laftiisu qaybo dadku kala isticmaali karaa ma jiro dad badan baan fahansanin oo magaciisu maqlaan forex iyo waxa jira wax kale oo forex oo kale iyo isna online ah stocks yiraahdaa sax wala bala kala iibiyo dahab ha noqoto shirkado iyo waxyaalaha kala iibiyo sax forex laakiin sabu waa just waa sarifka lacagaha sax qalaad sax foreign exchange soo gaabiyo sax marka foreign exchange simple waxa maanayaa waa hadii la yiraahdo waa loo sarif leh wax la wada fahmayo maanayaa marka sarif leh waa hal qaab ma loo bartaayo waa hal mid ma aha dhowr sarif leh oo kala duwan ma jiro waa hal nooc halka nooc ma la bartaa dadka ka wada shaqaysan kara nin walba albaabkiisa doon ka geliya wax isku xaniban ma jirto sax cid baahan ma jirto lacagaha lagu sarrifo in ku yar milicsano dib yar eegno lacagaha waa wadamada la aqoonsan lacagooda mid tabac noqonayaan mise waa wadamo gaar ah lacagahooda lagu kala sarrifay waxa ay ka lacag ku soconaysa sax qof wada tare wax sarrifaya wax lacag walba sarrifan karta soo karta hatta Soomaali shin hadda ka baadid way heli karta waxa ku xiran tahay marka dhaqaaqeeda cidda moogtaada cid baa suuq u maraysa ama samahow waxa jirta wax la yiraahdo account meel ka furinaysa suuqa dhexdiisa ah blocker wax yiraahdaan صح marka blockerka dalalku aqoonsan yahay lacag ku soo daro kow way ku xidhan صح hadii uu lacagta ku jirin de kama ganacsan kartid صح walaw caqabada ina saaran tahay inaga blockerada waaweyn ee shirkadaha waaweyn di sarflaya nidaamka ku fududeynaya si inaan aqoonsaneyn blockerka waa tala hal salaam blockerka la yiraahdo waa tala sonkor tala sonso wada laanta iyo nidaamka masuulka ma hooyada looma tago oo iyaga ka shirkadaas kale weeyaan shirkad noocaas jira ku fududeynaya nidaamka online ha uga faa'iideysatid marka waxa ku xiran tahay shirkadaasi inta lacagooda صح ay ogoshahay صح dhammaan waxa lacag ku ogoshahay kidoo ka ganacsan karto waxa dalka doonto صح hindi China Soomaaliga aad shirkadahan kuwana nawaas aqoonsan oo ku jira lacag loo ganacsado kuma arag sida guud hada baadhid waa helaysaa blocker waa laga yaabaa in la soo helo blocker lacag oo inay u kala weyn blocker lacag badan haddaynu taa ka nimaadno Cabdicasiis Sharaax waxaa jira idinku dabcan aqoonteedina waa leedin oo muddo bahalkan waday dhalinyarada Soomaaliyeed halka ka daawanaysa inay dhaqaale sameeyaan u baahan inay khibrad yeeshaan u baahan inay aqoon dabcan yeeshaan u baahan maxaad u diyaarsanaya كل سؤال شيء سواء سؤال مهم أنا ما استجاب كل بيننا أبا برضو كل هذا فوركس ما أنت إلى مهندي أنا يوم كريته وحكي يقول يفرق بدن وبرتي وبرع صح سيافر قارد الكاتشوغان قارد بدها تشوغان نظامي مقعيها كل اسم اسمان وجهه هاي يعني قف هذول بملي ما يدري له عيد بريانا أنت دون تقول سنة كاتي دلع عمله أنت ويقانا دي علم وموت ملك صبلامة هذول بلو كبروا هذول ضحك كبروا مربى هذول سو مع الأمر نظام لي ما يدري هذول حمرية كلي عيب ما له غفح ولا قبل وحي قانون بكت بنيه أنا أقول لك إنك أما كشرع أنا هدير كنظام كي كل دوام مغشوا حشرة أنا ومع البام خبر إن اللي هذا أيمن حلو سوق بي ماركس لايف ونستيوت أما معد وهو لأن أما كشقي ضد كانوا برو اللي من فوركس سايك صبرنا ولو حاولنا كلا سومالي هذا السنة تقدم بي وحكو شرتانا بقولك بس سجاش أم سديت سجاش وحكب جاري سجاش كبرتي سوق له كوا لقط لصق ولا كبحنا أو مالك حبرتينا وجهنا صح إن برسنتج كوبا سجاش حبرتين واي لا يرى هذا صباح الثلاثاء ده حبرنا عسبي صح دور كبلو دي لا بس حلو كمان لكن سنة تقدم بي سجانا برد أنا ممكن أروح كل شيء مع أساسا كل شيء مركور أرضي بنكاها مدرب بأرضي كسوها حسب معلم مكان صح حلي معد كاسي الغضب بولي لا لبيت وصدح تون الغضب حلقة برتا صح هذا إله مهدي صومالي وقدر الصومالي أنا حلقة برتا حلقة برتا صح هذه لو غرا كانوا أي ماركس لايف هذا هو قرتي وهيلس ما هذا أنا وحنا مرنا وده مرنا لبو كشريعة هم حلنا تيم أما النظام ما عندكم كحلي نظام تيم بس مسكتها طريقة الخبر كذا موت تيم بالين اللي هذا نظام ركبنا كوتشرة ركبنا هجرنس اللي هذا هريال تريدر إندستري هذا لان صنفوركيس مع النظام هذا دي واحد وشو ولا أكثر سنة المصنف صنفوركيس ولا دي في وأساس وقت سنة ولا أيام هجرنا لان كمية وانا أيام صح هريال تريدر إندستري هذا صنفوركيس وانا كمية هاي أصل صومالي فوركيسنا ونظام كله سنة أنا خبرنا سنة وهذا كوسي جرنا هريال تريدر إندستري وحنا قمنا dadki Soomaali waxa ku barnaa sax waxaan leenahay marka nidaamiyo hadda nidaam cusub ku soo danaa jiro aymal xogaa dadku waxa ka caawin jireen
lacagta ka racbanji wax xalina in bishii qofkii lala bixiyaan ku xalina $164 bilmoos aan bixin jirnay si aan u barano cilmiga Soomaaliya aad uga caawdo صح hadda nidaam koob trillion ku xalino qofka akoonkiisa inta akoonada lagu xiro aan ka caawino oo shaqadeedii akoonkiisa ku socoto si uu iskaga bixiyo lacagta si bilaw lacagtan bilaa aha wada dadka si lacag wada haysan gidigo qaabka waa caawina waxaan leenahay qofka level 1 level 2 level 3 level 4 kala sareeya صح qofka min zero wada laga soo bilaabaa markuu 10 basic fahmo intermediate ka loo bilaabaa markuu fahmo advanced baa lagu xijiyaa markuu fahmo waxa la bilaabaa ay meel wax scanners ay leedahay qofka ku caawinaya inuu horta fahmo inuu shaqaysan karo صح marka koowaad qof inta cagaha ku istaagin wax badan soo tijaabisayo scanners kaas isticmaalaya oo laser hormone scanner glutan wax badan buu ka leeyahay marka uu nidaamyada isticmaalo level by 4 ma badan leeyahay marka uu nidaamyada uu soo isticmaalo ama uu filinka fahmo ama nidaamka soo fahmo kadib waxaan barnaa hadda strategy aan u leeyahay strategy lahayd waxa lagu isfalsiya marka qofkaas gacantiisa u fadhiisato hadhow wuxuu noqonaa nin aan loo baahnay madax bannaan loo baahnay in aan u baahnay صح way jiraan dad aad ilaa 32 qof marayna dadka ku jira dadka aan hadda way takhriijiyaan oo isku filan ilaa 8 maraya mashaariic marka wax step by step u soconaya asaasan forex hadii la yiraahdo wala dhowr boqol qof way noqonayaan way maranayaan afka soo forex ku hadalno afka horiyada ku hadalno meelaha noo maraya marka waa haynaa nidaam dadka wax lagu baro intii aad ku jirtay dabcan caqabadu leeyahay dadka halkan inaga daawanaya maxay ka taxadiri karayaan adiga caqabadaha aynu sheegi karnaa caqabadiis baa kama badin ku dhaqaalaha kamid bish ku 200 lacag from 200 qof laga qaaday bilo 160 sama fawad wax xalan waana hada ku sheegay inaan ku bitray dhinaca dhaqaalaha oran karo nidaam adiga xirfad ku sahlasa inaad internet qoriyo haysatid computer haysatid xirfadan aad baratid ku sahlasa in aad boqolkiiba 10 boqolkiiba 20 boqolkiiba 30 per week la soo bixida antida salaad kun door hada meesha ku jirto suuqa 300 heli kartid faa'iido waa big opportunity marka wax inaad barato lacag badan loo hor u baahan weeyaa maanta aaminsan walow taa xalinay waxa kamid ah qofku ku soo jahwar lama ku soo galo boqol macallin bay leedahay ayama macallimiinta ka buuxinayaan ka buuxda marka bariga caqabadahaas YouTube kaas kale macallimiin badan ka buuxda Soomaali English kun laqo ku hadlaya qofku waxa uu ku dhex wareera marka qofku caqabada waxa ka bixi kara inuu monitor helo صح cid hagta hadduu haga helo sida cilmiga caadiga inaga hadda qof wax baranayo qof hadii orod wax baro mas'uul leeyahay mas'uul ku wareeri laha laakiin iskuul hoose la soo mariya iskuul dhexe la mariya iskuul sare la mariya qofku science uu fahmay wax fahmay صح kadib wuxuu leeyahay intaas oo opportunity intaas oo macayd loo kala baxo laakiin markuu secondary ka soo baxo hadii uu ku dhex loo oran lahaa war no one ku ka sheegay wax science dhakhtarnimo wax taraso engineer wuxuu tarayo si loo shaqaysto waxa hadii qofka laga qariyo ama ku wareeri laha maalin medicine barana maalin jamarana وجنتر halkan ka cilmigu yar badan yahay qaabka loo shaqeysta صح marka qofkii maadaama soo xifaansaneen hadduu monitoring u kala sheega si loo yiraahdo medicine dhakhtar baa yiraahdo 7 sano ku qaadanaysa hadda saas oo shaqeynaysa qof ku galaya 7 sano kan engineer baa yiraahdo 5 sano ku qaadanaysa ku galaya kan nurse baa yiraahdo 3 sano ku qaadanaysa ku galaya xirfadii loo kala sheego qaabka loo kala sheego hadduu helo monitor hadduu helo wax ugu muhiimsan waxaan tala si laha guud ah haddaad forex baratid ama YouTube ama dhalinyarada YouTube oo magacyada baratay channel YouTube ku leenahay oo sharax ku qorantay wajiyada dad naga soo xiriiro ama la soo ama anaga channelkii ha noqoto cid kale ha noqoto waa soo wareer stitch akhriya qaado kaliya tasho cid ardayno galo monitor samayso cidda monitorka ah laba dabeecado weynay qof iska jeclaan kara hebel qof iska amaanayo luuq kala soo hadlayo niyo monitor baa ita iska jira laakiin halkaasi monitor ku noqomayo dushan kala socda weey dushan daawan kala socda qofku laba jeer monitor ku yahay koo wan ku hagaya waxa aad u baahan tahay wan ku leeyahay oo de personal ku hadlaya ma si guud marka de channel ka soo gelina ma 10 duubano waxa aad u baahan tahay waxa soo baahan tahay صح laakiin de hadal caan baa yiraahdaa hadalka sida guud loo sheego dadka oo dhan ku dhaca laakiin waxa u baahan tahay shakhsiyan personal guud warad waxa soo baahan shayga waxa in laga saxo صح wixii marka lagu diray waxa soo baahan tahay 10 hebel soo diyaari 10 hebel soo diyaari 10 hebel soo diyaari waxa baahan qof ka dhawtay inuu ka saxo wixii soo diyaarsan ku yiraahdo saxsaxay si wacan baa samaysay waxa kaga dhiman hadalkana wax barno qofku adoo u diray filimkii ama fiidiyoga duubna u diray oo soo daawaday 34 daqiiqo in badan ku celceliyay analysis soo sameeyay wixii soo sawiray
garaafyada wixii soo sawiray ba haddana markuu noo yidhi ku celinaa qofkii weeyaan gacanta ku hayn marka adoo ka soo qaadaan cid gacan ku hayn hadii wixii ku saxa filimeysid marka caqabada ugu weyn weeyaan waa guuleysanaysaa horta lagu oran maayo qofku monitor ma guuleysan karo waad guuleysanaysaa laakiin after a while waqti badan kadib lacag badan waqti badan ma ka baxay haddaad bilaabo monitor waayo waa soo jahawareeraysaa wadada tanaa soo maraysaa wada dheer bas soo wareegsan laakiin haddaad monitor samaysatid waa smart way baa isticmaalaysa qofkan wadada kusoo jabay ku jabmaysid intuu wanaagsan mareen bad maraysa isagaa ku saxaya ku jafaya xayan kadib waa fudud nidaamkana weliba forksku waa waxyaalaha ugu badan ee dhalinyarada jahawareeriya waayo inta badan dad badan kasoo xiriiraya waan khasaarnay dhibaatana iga dhacday lacag jaamacadeed lacag nidaam haystay baan u isticmaalay biilkan waan waayey waxaad keenaysaa waa monitor la-aanta aqoonta aqoonta waxaad ku heli kartaa inaad monitor samaysatid waa computer balaamuus computer balaamuus waayahay cabdicaas gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii shaqaynaa dabcan talooyin khibrad intaba dhalinyarada ina daawan doonto ee xaggan nagala socon doonta maxaynu la wadaagaynaa maanta horta dee qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan haddaad xanuun leedahay ama nidaam leedahay xaajo caqabad qof lama odhan karo caqabad baan ka helaaya macalin walba noqo cid walba bar horta qofku inuu isaga horta sub ah macalin yahaga ah naftiisa kugu nahago foorki ha ahaado nidaamka la ahaado shareeco kala ahaado simson diin ha ahaado injineer ha ahaado waxa walba baranaysa kow inaad samaysatid wixii waxaa kamid ah ciladaha jira oo mashquulsan afaraad ka saac way mashquulsan qof hormarkiisa kama mashquuli karo horumarkaaga ka mashquulshin macnaha waxa weeyaan waxaa jirta qaacido caamiya ama jirta qof ama wax shay damiyaanka iska daa shay halkiisa taagnaan kara ma jiro ama inuu hore u socdaa ama waa inuu dib u socdaa sax miiska hadda halkaa yaala halkiisa ma wada after long time wuu kharaabaya u baabaya halkiisa ma ahan waxa saa halkiisa ahan ma jiro haddaan la habeeno mar walba wax laga bedelo la yara qurxino ma ahaanaysiis qalimaanta waxa ku baabaya dilaacaas ku bataan waa ka soo foolxumay laakiin haddii aad halkaaga aad isku dayday hore u socotid si walba mashquul aho waxaa haysanaa time ahaan hadda qofku kule waa mashquulsanahay labada gina mushqaya habeenkii dhan waqti habeenkii waqti ka jabsan xilli hore ka xilliga laba saac kusoo saacada noqoto 30 min ha noqoto 20 min ha noqoto adiga ku naftaada sheekada kugu sheekaysan soo dhaxbax han samee hore u soco hanay jab mashquul waxaas ma jira just adigu time managementkaaga oo sax saxnaa waa koowaad sida guud aan leeyahay ka labaad xagga focus leeyahay waxa weeyaan waxa hadda ka hadlayay iska orodka iska daa monitor raas هذا محي كودي بس تردون قف كذا دليل لا لا قف هذا ردون سيد صب هو عتا يوقتي جوا وقت مونيتر كياب حيا كبر تك كياب حيا مونيتر أنا معد كشيء هاي ملها نقط قف كلام معد كلام نقط قف إنه معد يقوله وعد وح كبرته مونيتر براسي قف متشيل نيرس إنه شكته وميل مرة وأن كورن الميل هيبلان كصبح ما برتين نيرس صدق سنة نيرس ما برتين أي أبد ما إننا ما كبرنا سيحيد كلا ما بكرة قتيمة ومحيد كأيه الرأي ما إننا أنا تميجي قف كشير كيس كلا برتا أيه الرأي ما إننا قف كسيدا دي فرمتها كل واحد هذا بتشرو فرمتها نفس كل واحد قف كسيدا لورد غي سيدا الله وكتت كلا وجودي سيدا مو حسن برتا ما يشكش كبرتا مسير سرير تلو وجولي كيفان هروسيني قف كوريري لو يلا باتن شيء ويا وحنا نرس شغال يقطع ما له والبا واحد صباح موضوع عصب كصبح لا لكن هذا ما عاد قرون نرس لبرو ولا برا ما انت شغال برا ما كور جيرك قفك انا تميقيه فيسيولوجي قف هو ما حيو قفك horta laga soo shaqeynaya sababahana adduunida loogu dhigo curriculum exactly manhajka curriculum waxa weeye wax ku sahlaya ina markiiba cilmiga forkis waa same waa xirfad waana manhajka heshaa waana curriculum heshaa waa haga heshaa curriculum forks meel yaala ma jiro qofku meel ku dhagan sida waxyaalaha kale hatta dadku qortay manhajka forks soo bartaa كون سبب كسب أنا كبري يكونان 10 أو كل دوان marka talada ugu muhiimsan weeyaan cidda doonto ha noqotee monitoring iyo nidaam sameyso hadda nidaam fursad u leeyahay markaas way qodobka talada ka san joojin waayahay hagaag daawadayaal waxaad daawanayseen barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlaynay qaabkan casriga ah ee sarifka lacagaha ee loo yaqaano forex
waxaana noogu marti ahaa cabdicasiis ciise ibraahim oo loo yaqaano shareeco kana mid ah macallimiinta wax ka dhiga suuqan forex-ka loo yaqaano iyo IML intaaynu ku kulmayno barnaamijyada kandhigiisa ah waa anigoo Cali Fahada iyo kamaradii Aamin Cabdiwahaab al-ustaad shareeca ayaa marka noogu marti ahaa saas iyo nabadgelyo aad mahadsantahay adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo eDahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida